mudaharaadku wuu soconaya habeen buu socon doonaa maalin buu socon doonaa maanta bilow buu ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa shacbiga Soomaaliland meel kasta joogaan gudaha iyo dibadda waxa maanta dhacay mudaharaadkii silbiga ahaa ee aynu ballansanayn maalinta Khamiista ay socodsadeen axsaabta mucaaradka ah oo ciidiye wadani waxaanu ahaa isu soo bax nabadeed xisbiyada mucaaradka ah waxay siteen boorad iyo siiri oo kaliya nabad baanu dareenkayga ku muujinayn doonista shacabka ayaan cabiraynay annagaana hogaaminaynay xukuumaddu waxay u adeegsatay xoog iyo itaal wixii ay haysay waxay geysatay tacaddi iyo xadgudub badan waxay adeegsatay xabad nool waxay adeegsatay sun waxay adeegsatay jirdil waxay adeegsatay xadhig waxay adeegsatay baqagelin waxay adeegsatay cagajuglayn iyo is-hortaag xuquuqeed xisbiyada mucaaradka ah waxay soo bandhigi doonaan dhammaan tacadiyada xukuumaddu geysatay waanaanu wadnaa ururintooda insha Allahna waqti dhow ayaanu iyagoo dokumentiya soo bandhigi doonaa xukuumaddu waxay dishay dad shicib ah oo aan waxba galabsan tafaasiisha dhimashada iyo dhaawaca ee ilaa hadda soo gaadhay dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland waa sidan gobolka Maroodijeex dhimasho 3 qof dhaawac wuxuu kor u dhaafay 50 xubnood intana soo gaadhay gobolka Togdheer dhimasho 2 dhaawac wuxuu kor u dhaafay 40 xubnood gobolka Sanaag dhimasho 1 qof dhaawac ilaa 9 qof qofka Sanaag lagu dilay wuxuu ahaa qof wheelchair ku fadhiya oo curyaana oo wuxuu galabsaday aan la garanaynin ayay xukuumaddu dishay marxuumiinta dhintay Ilaahay ha u naxariisto ehelkooda iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland baa Ilaahay sameeyay iman haynaga wada siiyo dhaawacana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay siiyo caafimaad sariic ah mas'uuliyadda khasaaraha oo dhan waxa iska leh oo aanay cidina la wadaagaynin lagama xisaabtami doonaa xukuumadda waqtigeedu dhamaanayo ragii xalay saqda dhexe shacabka u hanjabeeyay baa mas'uuliyadda iska leh iyagaana shacabka laayay amarkoodana lagu laayay mudaharaadku wuu soconaya habeen buu socon doonaa maalin buu socon doonaa maanta bilow buu ahaa mudaharaadku ilaa xukuumadda lagu soo celiyay xaydaabka sharciga wuu socon doonaa ilaa 13 Noofambar wuu socon doonaa haddaan doorasho la qaban isbahaysiga mucaaradku waxa uu hadda u bilaabmaya shirar masiiri ah oo dalkan lagaga badbaadinayo kaligii talisnimada iyo xukun qarqooshka dhawaana waxaanu idin la wadaagi doonaa go'aamada dalkan lagu badbaadin lahaa xukuumadda maanta waxay amartay in shirkadaha bixiya adeega isgaarsiintu ay jaraan internetka waa dhaqanka dictatoriska in ummadda xuquuqdooda la duutiyo xuquuqdooda asaasiga laga qaado shirkadaha amarka la dul dhigay ganacsigooda iyo macaamiishooda ha u turaan oo yaanay qaadan amarada khaldan ee siyaasadaysan waxaan ka xumahay in mar labaad la xidhay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga xamarji waa markii labaad mudaharaadkii horena waa la xidhay waa la socotay maantana wararku waxay nagu soo gaadhayaan isagoo ku soo socda mudaharaadka in gaadhigiisa gaadhi lagu dhuftay oo ay mu'aamarad ahayd
kadib markuu ka soo degayna la xidhay dhaawacna loo geystay waxaa kaloo xidhxidhan ilaa 100 qof oo muwaadiniina iyaguna ugu dambayn waxaan shacbiga Soomaaliland la wadaagayaa in warkii xalay ee Maxamed Kaahin uu ahaa been abuur aan sal iyo raatoon lahayn mana aha markii koowaad ama labaad ee war beena ummadda la soo hor fadhiisto ama isla soo hor taago waxaase maanta caddaatay inuu warkaa ku xalaashanayay dilkii iyo dhaawacii uu shacabka soo gaarsiiyey maanta iyo inuu dalkan u horseedo dagaal sokeeye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.